madaxa dalada difaacda dadka ka shaqeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalalka Afrika Dr. Xasan Shiro Sheekh ayaa ku baaqay in loo baahan yahay maamulada dhisan iyo kuwa dhismayaba ay door muhiim ah siiyaan dadka ku lugta leh arrimaha xuquuqda aadanaha. qof kasto Soomaaliya waa inuu ogaadaa inaysan dhici kareynin in Soomaali la isku soo boodo war dambe inayna jireynin in la xisaabtamo maamuladu ay kala degaan nidaamyada iskuulka caafimaadka wixii degaana dadka maamuladaas madaxda ka ah oo la xisaabtamay ay wadaan xuquuqda aadanahana ay naqato jaangooyo kamida waxyaabaha lagu dhisay maamuladaas si maarta loo helo qaran Soomaaliyeed oo dhaxdiisana nabad ah maaragtay dariskiisana nabad la ah marka maamulada waxaan farayaa inay marka koowaad ay horta aan murankan ah degmadan yaale iyo gobolkan yuu ka dhaxeeya in la iska dhigo qolo kastaba meeshay sheegato in loo daayo la yiraahdo deegaan ahaan saas ka naqato laakiin aan lagu marna ina dhicin in la diriro oo dagaal uu ka dhaco dhul Soomaaliyeed ayadoo la leeyahay meel hebel yaale iyo meel hebel anaale waxa in laga baxaa Soomaaliya waxay u daban doontaa in qof markii dadka la tiriyo qof walba uu helo maartay in warqad aqoonsi oo computerized ah oo numberkiisa iyo wajigiisa iyo magaciisa uu ku yaalo Ethiopia dadka jooga Soomaalida la tiriyo oo ayagana ay helaan jinsiyadoodii Ethiopianka ah Kenya Soomaalida joogto la tiriyo oo ay helaan jinsiyadoodii saddexda wadanna ay ka wada shaqeeyaan Djibouti sidoo kale laga wada shaqeeyo markaas qof kastaba inuu hal jinsiyad uu leeyahay markaas Soomaalida markaa xaqiiqdeeda la ogaanaya. waxaa Dr. Xasan Shiro Sheekh oo la hadlayay telefishinka qaranka uu sheegay in isbeddello cusub ay Soomaaliya madaxa la galayso loona baahan yahay in door weyn oo muhiim ah la siiyo arrimaha nabadgelyada iyo dadku in ay markaasi ka qayb qaataan dib u dhiskii horumarka dalkooda. shirkadahan hadda jiro waaweyn ee ganacsiga ah amba mid isgaarsiin ha noqoto amba mid xawlaad ha noqoto maamulku waa inuu warqad u qoraa uu yiraahdaa dadka aad shaqaaleysay oo shaqada qabta waa imise qofo magacyadooda iyo jinsiyadooda soo sheeg ka dambana uu yiraahdaa si affirmative waa in dumarka gabdhaha jaamacadaha ka soo baxaya dumarka jooga wadankii in laga qayb galiyaa go'aamada shirkadahaasi ay qayb ka noqdaan maxaa yeelay gabar Soomaaliyeed baa lacag ku soo dirtay inta badan dad Soomaaliyeed buu adeega waa in la helaa ugu yaraan 50% shaqaalaha rasmiga ah ee hay'adda ka shaqeynaya inay noqdaan gabdho oo gabdhaha shaqada loo hormariyaa oo hadii Ilaahay ka raali noqdo mar un xadgudbaha in la marin doono cadaalad dadka Soomaalida ah waa dad isoo yaqaana ina abti ina adeer ina eeda ah ninka dagaal inuu hadda abaabulada rabow ogaw in aad mas'uul ka noqon doonto burburka iyo baaba meesha ka yimaado dadku hadda inta badan waa wada nabad intaan ka ahayn nimankan maaragtay negative ka ah amba maaragtay xooga taban ah ee hadda wadankii laga sifaynayo nabadiidka ah maahana inta kale wadanku waa nabad colaad qabiil iyo colaad maaragtay hayb iyo colaad goboleed yaan la abuurin deganaan iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada hadal ha lagu dhameystiro wax kasto jiro wax kasta baa jiri karay muranaag ka jiro boodariska oo gobol walba uu leeyahay kan maaragtay Puntland iyo kan Somaliland kan Puntland iyo kan maaragtay gobolada dhexe kan maaragtay in gobolada hadda sameysmay murana waa iska jirayaan khilaafi baa jiraya qof baa si wax warkaya qof baa si kale wax warkaya intaas oo dhan waa inay noqotaa haasaw siyaasadeed oo lagu dhameeyo wada hadal laakiin ayna naqanin mid xabado iyo burbur iyo isabaabul cusub oo qabiilad hadda la galo. cilmi cismaan faarax boodhari telefishinka qaranka